أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أصحاب الشانل كوحنا وحن كعصرنا إن سيكون مقالب موصولنا الله يجنا دهان نقول عاوزان سبسكرايب قبل الكير نفرتان مقالب موصولنا صادرتان أدب مهزنتين. السلام عليكم. بيحرينك إثيوبيا مid ka mid ah mashaariicda weyn caalamka biyixireenka weyn qaaradda Afrika ahna ka tobnaad caalamka oo dhan. Khatarta weyn ee soo wajahaysa dalka Masar dhalin karana dagaalo ummado badan ay ku hobtaan. Waxaan ka hadlaynaa khilaafka adag ee u dhaxeeya labada dal iyo wuxuu yahay biyixireenku. qodob oo waaweyn ayaan kaga hadlaynaa mowduucan. Waa maxay khatarta uu ku haya biyixireenku dalka Masar? Xaqaa'iq ku saabsan biyixireenka iyo faa'iidada uu leeyahay Itoobiya. Ayaan ku bilowna khatarta uu ku haya Masar. Marka koowaad, qaabka dhuleed ee Masar aan ogaano. Masar inta badan waa saxare, webiga Niilna uu maro sidii tuumbadii. Dad ogaatay webiga Niil ahmiyadda uu leeyahay dalka Masar. waxaa ku nool Masar dad ka badan 100 milyan. 100 milyan waxay ku nool yihiin biyaha Niilka. Dhulka Masar 94% inuu yahay dhul saxara oo haawanaya oo aan lagu noolayn. Magaalooyinka Masar waxay ku tiirsan yihiin sidii tusbaxa hareeraha webiga Niilka. Niil marka laga hadlayo waxa lagu tilmaamayaa halbowlaha dalka Masar. Beeraha, wax soo saarka xoolaha dhammaan waxay ku tiirsan yihiin webiga Niilka. haddii hoos dhac uu ku yimaado biyaha Niilka, arrinkan si toos ah wuxuu saameynayaa nolosha Masaari malaayiin ah. Dalka Masar biyaha la cabo 95% waxay ka helaan webiga Niilka. Marka la buuxinayo biyixireenka harooyinkiisa inay gaari waayaan biyuhu beeraha Masaarida ayna ka dhalato gaajo wadareed lagu hoobto dalka Masar. waxay ka dhigan tahay hadduu burburo biyixireenku inuu halaag ka dhaco dalka Suudaan iyo Masar. Fatahaad uu webigu sameynayo ee arrinkaasna uu ka dhasho. Wadahadallo aad iyo aad u dheer ayaa dhex maray Masar iyo Itoobiya qaybsashada biyaha Niilka. Madaxdii Masaarida soo martoo dhan ay ka wada hadleen Itoobiya sida Anwar Saadaan, Mubaarak, Siisi, dhammaan madaxda Masaarida. Ilaa hadda waxaa dhex mara labada dal wadahadallo aan faa'iido keenayn. Xusni Mubaarak wuxuu ka dalbaday dalka Suudaan inay saldhig militari siiyaan si diyaaradaha Masar halka uga duqeeyaan isku day kastoo ay sameynayso Itoobiya. Diktaatoorkii Itoobiya Mengistu Haile Mariam ayaa wuxuu ka hanjabay 70kii inuu leexin doono biyaha Niilka. Markuu Anwar Saadaan uu ku fakeray gaarsiinta biyaha Niilka jasiiradda Sinai. Ra'iisul wasaarihii Itoobiya ee ka horreeyay Abiy Ahmed, Haile Mariam Desalegn iyo Khartoum iyo Siisi ayaa ku heshiiyey heshiis markii dambe noqday hal bacaad lagu lisay. heer markii dambe uu gaaray Siisi. والله لن نقوم بأي ضرر لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر marka biyixireenkii xuduudka, biyixireenkii barwaaqada. biyixireenkan fikradiisu waqti aad dheer bay soo jiitamaysay ilaa 1950kii, laakiin dhisidiisu waxay bilaabatay 2011kii. biyixireenkan waa ka ugu weyn qaaradda Afrika, caalam ahaanna wuxuu ku jiraa kaalinta 10aad. dhererka darbiyaashiisa waxay gaarayaan 145 mitir, baliciisana 1800 oo mitir ayuu gaaraya. waxaana ku yaala 15 waaxood oo koronto laga dhalin karo. qiimaha ku dhaxay dhisida biyixireenkan waa $5 bilyan. xukuumadda Itoobiya waxay ku leedahay biyixireenkan waa kan kaga bixi lahayn faqriga iyo marada dulliga. biyixireenkan waxaa laga dhalin karaa 6,000 oo megawatt oo tamar ah, taasoo u dhiganta 6 xarumood korontada soo saaraan oo ku shaqeeya tamarta nukleerka. biyixireenkan wuxuu ka dhigayaa Itoobiya dowladda ugu horeysa soo saaridda korontada iyo iibgeynta.
Itoobiyaanka si guud ahaan waxay u arkaan mashruuc ummadeed, mashruuc ay sugayaan 100 milyan oo Itoobiyaan ah, intooda badanna ay ka hooseeyaan khadka faqriga, taasoo ka dhigan Suudaan inay helayso koronto lacag jaban. Waa arrinka keenay Suudaan inay biyo-xireenka si aad uga soo horjeedin sida Masar oo kale. 900 oo kiiloomitir ayuu u jiraa Addis Ababa. Biyo-xireenkan korontada laga dhalin doono waxay gaari doontaa Suudaan, Eritrea, Koonfurta Suudaan, Kenya, Uganda, Tanzania iyo Congo iyo Burundi. Biyo-xireenku howlgalka koronto soo saaridda wuxuu bilaabi doonaa 2021 wuxuuna si dhammaystiran u bilaabi doonaa 2022. Dhacdooyin la xiriira biyo-xireenka. Samiyu Bikele waa injineerka ugu sarreeya biyo-xireenkan mas'uulna ka ah, laakiin 2008 ayaa laga helay gaadhigiisa dhexdiisa isagoo xabadna madaxa uga taalo. Samiyu ma ahayn nin caadi ah, waa nin 12 biyo-xireen ka dhisay dalka Itoobiya. Geeridiisu waxay ahayd mid lama filaan ah, su'aalo fara badanna la iska weydiiyey. Cidda dishay. Natiijooyinka ay gaareen booliska Itoobiya ayaa yidhi cidna ma dilin, isagaa isdilay, isagoo ka xun dibdhaca biyo-xireenka. arrimo la xiriira khilaafaadka siyaasadeed ee kala dhexeeya dalka Masar. Hadalladiisii ugu dambeeyey isagoo la hadlaya carruurtayda iyo xaaskayga la soco. Aaskay u sameeyeen Itoobiyaanku ayaa ku tusaya maxay sidii u badbaadiso jiritaankeeda. Khilaafka ugu adag wuxuu ka taagan yahay buuxinta harooyinka biyo-xireenka. Halkay Masar leedahay 7 sano gudahooda la sameeyo xilli roobaadka, halkay diidantahay Itoobiya ay ku leedahay 2 sano iyaduna la sameeyo buuxinta harooyinka. Waxaa xusid mudan halka uu gaaray biyo-xireenku aan lahayn kasoo laabad. Masar hawlgal milatari hadday isku daydo wax ka badan ma samayn karto inay duqeyso iyo inay ciidamo gaar u tababaran oo commandos ay ku dejiso mandiqada biyo-xireenka oo ay alaabta biyo-xireenka markaa u qarribeen. Itoobiya waxay ku kalsoon tahay xaaladda Masar marka la eego inuu wax weerara uga iman karin Masaarida. Waa siduu yidhi Meles Zenawi kii hore ee dalka Itoobiya wasaaraha ka ahaa. Wuxuu yidhi Masar ma awoodo waxaan rabnaa inay naga celiso, waxaana ku heli mayso waxaan ahayn wada hadal. Mubaarak oo xilligaa haystay dowladda Masar madaxweyne ka ah wuxuu yidhi wuxuu la yaabay hadalka Meles Zenawi, cadaawadda fara badan ee ka buuxda qalbigiisa xilli Masar iyo Itoobiya wax cadowtinimo ay ka dhaxayn.